السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي إذا قالقة وإذا وذا السلامة دمانتين وشعني شان الجنة وحين كعدسان أنا سبسكرايب كنو صارتان إن شاء الله تعالى كومنتي لاقنا نسيسان هدي إلهي يرهدو إن ما أنتو حربا إن كهذا له هدي إلهي يرهدو صاحبتي ماذا دمرك عيار ما أنت إن كهذا له حوجنا صار إن شاء الله تعالى أنت عن كعقانو عم بأنت عن كعرك إن وحاجرتو إن الوقت إنك صارت سمارد أي ترى صاحبنا جد meel magaalo macnaha saaxiibnaageed wax weyn u dambeys maadaama Soomaalidu tiraahdo laakiin laba qof markay saaxiibo noqdaan labadooda mushkilada kama wada imaato hal qof ay ka timaadaa mushkilada marka hadii laba gabdhood ay saaxiibo noqdaan labadaas gabdhood gabar kamid ah haday gabadhan saaxiibadeeda ah wax u sheegato waa inta aniga arkay inta badan ee wax u sheegato aanbay mushkilad la wadaagto aanbay dib ayada reerkeeda ka heystay la wadaagto dumarku waxay jecel yihiin inay faanaan inta badan waa inta badan waxay jecel yihiin inay faanaan tusaale waxa arkaysaa gabar u imaanayso caqabad iska haysato iyo mashaakil iska haystaan dhanka reerkeeda amba ninkeeda amba nafsadeeda amba ehelkeeda amba program kale ayada ku furan oo ku soo siyaaday marka waxay u tagaysaa gabar kale saaxiibadeeda si ay ula wadaagto mashaakilka haysta iyo dhibki maadaama ay saaxiibadeed tahay qofkuna markuu wax ku dhacaan stress iyo buuq ku dhacaan wuxuu u baahan yahay nafis meel uu ku nafiso u baahan yahay si uu u dareemo inay wax kala yaraadeen marka gabar saaxiibadeed u imaanayso waxay leedahay ninkii ay dhibay biilku igu dhibay masaariiftu igu dhibay mashaakil noocaas ay haysto waxba saan iga marka gabadhii saaxiibadeed warka ay u sheegto waxa laga rabaa adiga gabaray tan warka la u sheegto waxa laga rabaa inay wax dajiso gabadhii ay wax u sheegto ay tiraahdo waxaas iska ilow adduunka dhanaa saasa anaga dhanaa saas ku wada joogno reeraha Soomaalida dhanaa noocaas iska dulqaado wixii dhacay hadda way dhaceen buuq wax kuma taraayo baayo waa kaasa على الأقل إني قف كاس محيطات أي دجسو ما سمعنا يسوي حي سمعنا يسا وحفرنا بوق إلا صوك على بحيسا بوق در كاس يحلل الله مساسوك وياله لا إله إلا الله محمد رسول أنا قاعد أدقيقة ألعبتو دقا انتظروا كريا كرجو ترترع تمو إيش الله يا مذحوا إيه دقا مش خشوا يجوا يسوق بيا سريرته وسيدعوني قال يسيحيا الله جاي الله نلاش أصدقك ما بكجرك لنال نوع عسى من نوع عسى كنا شهر بيل ما حسابيو waxaa laga yaabaa bish $400 biil inay qaato ama ka yar bay qaato markaas waxay leedahay wax aniga waxaan qaataa $800 $800 aan qaataa lacag li ma xisaabiyo maxaa la waa kaasa gabadhii marka meeshii waxa ka sii galaayo codad kala sii galayso isla hadal kala sii galaayo stress kala sii galaayo mashaakil ku sii furmaayo way isla hadlaysaa maadaama qofkan kugu timid inay mushkiladan la xalisid ee saaxiibna ku aragtay waxa laga rabaa inaa mushkilada la xalisid ma inaa mashaakil ku dul furtid qofka ku yimid afaan idlaa iyo been iyo waxba ka jirin ku dul furtid amba haduu rabo faankaaga barhun ahaado haduu rabo saas waxa ku sameeyay ninkaaga haduu rabo gabadhan ma aha masaakiinta ee saaxiibada ee ku timid ee mashaakilka ku sheegatay inaad adigana ku dul furtid mid kale hadii aad inaad gabadhan u faantid maalin caadiya oo mashaakil dib haysanin oo imaa u faan hadaa jecesha inaad faanto laakiin qof mashaakil ina la xaliso kugu yimid oo asiga tiisi la leeyahay oo iska rafaadsan oo maskaxda stress ugu furan yahay oo xaaladiisa xaal tahay markuu ku yimaado buuqala waxa ku dul furin maxaa buuqala ugu dul furaysa iyo faan idlaa iyo waxba ka jirin iyo hada iyo maxaa qofkan niyada baa ka sii dishay gabadha saaxiibada ahayd waxay kale oo ay ku sii caan yihiin dumarka Soomaaliyeed saaxiibada ah waxay kale caan ku sii yihiin gabadha markay albaabka ka sii baxayso isla markii telefoon ay qabsanaysaa rag halow heblaayoy soo carar sheekan ku haya waa mid kale oo saddexaad tii ordaysa imaanayso amba deerta ayada u tagaysa amba way arkaysaa maalin kale markaas ay leedahay naatii heblahayd ma taqaana ha ninka soo yeelo oo waarafaadi oo waasici oo wax ma siiyo oo maxay ahayd ayada ooynaysa iyo timid maxay taa abba waxaas nin ma ahane saan wal bartiyaaltii lagu falanqeyna maskiintii u timid in wax lala xaliyo meesha lagu falanqeynaya waxa loo sii siyaadinaa murugo waxa loo sii siyaadinaa mashaakil waxa loo sii siyaadinaa cuqdad waxa loo sii siyaadinaa qofka inuu stress ku dhaco marka tii ma aamusayso ayadana tii saddexaad ee warka loo sheegay ma aamusayso fag intay tiraahdo waxay u tagaysaa heblaayo kale u tagaysaa heblaayada kale waxay leedahay heblaayo sheekan ku haya haye waxay yeesaa heblaayadaas ma taqaana ha saas ku dhacday oo heblaayo u sheegto ana ii sheegtay qof ha u sheegin bal ilaahay kugu dhaariye maxaa qarsan
waxa qarsan ii sheegi kartiin hadda adiga heblaaya saasaa ku dhacday heblaaya u sheegtay heblaayada ana iisa sheegtay qof ha u sheegin maxaa qarsan marka waaye waxa aan la sheegayn oo qarsan maxay tahay waxba ma qarsanabe miskiintii soo dacwootay ee u timid inay nafisto ee inay saaxiibteed wax laba sheer garayso u timidana maxay faa'iido oo mashaakil iyo buuq ahayn maxay niyad jab iyo in lagu sheekaysto iyo labadii naagoo shaax meel ku cabaysaba inay iyadu ku shaahaysa moogiye maxay kaloo faa'iidaa hesh waxaa loo qaatay inay iska aamusto sariirteeda intay fuusho oo go-weyn oo baatiya qaadato oo labada indhood saarata ay iska oysaa loo qaatay wallaahi taasaa loo qaatay ay iska oyso because waxba may faa'iidin waxba kama soo faa'iidin meeshaas marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay stop gabdhaha saaxiibadaada ee sirta kuu sheegtay ee kuu yimiday ee wanaaga kugu yimiday ee rafaadsan ee silacsan marka aragto ha ku dul furin mashaakiladaada kaleeto ha u sheegin hadalka ee kuu sheegtay qofkaani sirta ee reerkeeda ah ee kugu timida ee kuu sheegtay ma aha inaa intaad 19 buu ka qorto aad naaga xaafadda dhan ku wareejisid ha sheegin hebloy horta ha sheegin haddaa maqasho mushkilo kama dambayso maxaa lahay erga ha sheegin la yiraahdo ya ha sheegin haddaa maqashid muujeedaa waa mushkilo bilowgeed ya ha sheegin haddaa maqashid dhib oo dhan meeshaas uu ka imaadaa maxay tahay ha sheegin waxbaa lagu sheegtay waxbaa lagugu qarsaday qof baa mashaakilkiisii wuxuu u arkay inuu adiga kugu nafisi karo boqol xaawaleeya joogto umuu tegin gurigaagu soo fuulay wuxuu kugu yimidaa waxay tahay inuu mashaakilka asaga haayo oo kugu nafiso ma aha inaad 19 buu ka qorto xataa hadduu saaxiib kula ahayn xataa hadduu saxiib islaamnimada iyo insaannimada aan ku jirin qof dhibaataysan inaad ku kordhigato aanbaa u fahanto haddii ilaahay adiga wax ku siiyey oo ilaahay adiga ninka wax kaaga soo qaaday alxamdulilaahi dheh waxaaga kala bidhayso meel gasho maxaa ummadda sanka uga gelinaysaa shilimaadka yar kaa heshay maxaase gabar walaashaayoo rafaadsan indhaha uga gelinaysaa maxaa uga gelinay maxaa ka faa'iidaysaa ya maxaa ka faa'iidaysaa waa waxbane wax aad ka faa'iidaysid ma laha waxba kama faa'iidaysid marka gabdhaha Soomaaliyeed meel walba joogaan waa salaamayaa inta wanaagsan waxaan leeyahay wanaagiin waa ku mahadsantihiin inta xun ee jecel in maxay ahayd gabar kale walaashooda dhibkooda unba inay ku digtaan maahan aan wax kale aan maxay ka shaqeynin waxaan leeyahay walaalayaal iska dhaafa wanaaga wanaagsan xumaanta faa'iido ma laha xumaan sideedaba wax faa'iido ay leedahay ma jirto waxba kama faa'iidaysid haddii aad qof bini aadan xumaantiisa u soo jeestay falanqayntiisana aday berri kugu imaanaysaa marka wax adiga aad gabadhaan kala siman tahay waxba ha ku colaadinin because ninka dhibay ayadu may isdhibin ayadu ismay dhibin ninka guuri calafaa u geeyay guuri markay rabtay inay ka tagtana dalaaq iyo furin uga tagi kartaa oo xagga ilaahay kasoo dhammaaday wax dembi ayadu ma lahan wax dembi ah ayadu ma lahan dhibka hadduu ninkan ku haayo ayadu dhibka iskuma hayso waa qof iska rafaadsan waa qof iska dhiban waa qof kugu yimid inaad tala siiso walaaltinimo tala inaad siiso waa qof kugu yimid marka qofkii kugu yimid inaad tala walaalnimo siiso haddaad stress iyo buuqal usii siyaadiso waxa faa'iida oo soo bataaba yaraatee ma jirto magacii saaxiibtinimadan meelaa uga dhacdeen gabdhaha Soomaaliyeed magacii saaxiibtinimadan meelaa uga dhacdeen ma arkaysa laba gabdhood oo saaxiibo ah oo ugu yaraan 10 sano saaxiibo ah amba 5 sano saaxiibo ah amba 6 sano saaxiibo ah amba 20 sano saaxiibo ah waa yar yihiin boqolkiiba 25 ku jirto boqolkiiba 25 maxaa sababay maxay tahay sababtaas haddii saaxiibtinimada la isku fahmi waayo oo in la kala tago la damacse maxaa la isaga falanqeynaya ya laba gabdhood oo saaxiibaha aa kala harayso markaasay tanna kitaabadeeda qaadaysa xagee aqligiin iimaankiinu jiraa maxaa maskaxda iimaanka idinka qaaday qofka haddaa kala dhamaateen oo kala tagteen khalaas waa kala dhamaateen waa ardullaahi waasica hadduu dhib kugu haayay dhibkaas ugu haaya qofkan waa kala nasan waa caadi laakiin noloshaas ay ku nooleed ninka saasuu ahaa guri noocaasay deganeed cunto noocaasay cuni jirta adiga waxaas kuu dirsaday ya waxaas cid kuu dirsata ma jirto kaliya qofkan waa isfaham weysa waa kala tagtaan qofka dhibaatadaas ugu hayo xumaantaas ugu sameeyay saasaan ku kala harno wax la yaqaano waa laakiin falanqeyn qofka inaad falanqaysid oo 19 ceebood uusan lahayn ka sheegtid oo kuu leeyahay ugu dartid waa kugu doqonnimo gabar adiga walaashaay waxba isma dhaantiin wax aad isdhaantiin haba yaraatee ma jirto guurkii calafka un baad isdhaantiin iyo qof walba soo nasiibka u caawiya waa in salaama dhamaantiin insha allahu tacaala
waqtiga igu yar xogaa waan xanuunsanahay maalmahan waan xanuunsanaa insha allahu tacaala arrimaha noocan waa arrimo aad iyo aad uga baahan in laga hadlo u baahan waana soo badi doonaa fiidiyoyaasha insha allahu tacaala waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe-ka isiisiin haddii ilaah yiraahdo subscribe-ka yaa laga hilmaamin share-ka yaa laga hilmaamin haddaan soo bilaaba hadda إن شاء الله تعالى ما أنت لو فيديو يقفش عدي إلهي يراهدو وأيضا السلام على دمانتين صاحبتي قالقة وأنا ما تنتين السلام عليكم ورحمة الله